Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaradka caalamka oo kala socotaan warbaahinta Cali Media. Anigoo Cali Rashid Maxamed ayaa idin warabi doona. Qodobada aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid noqonaya istaraatiijiyada cusub ee isgaarsiinta jiilka shanaad ee 5G ee dowladda Soomaaliya ay daafurtay iyo waxyaabaha ku duugan. Waxaan kaga faalan doonaa muuqaalkeena daqiiqadaha uu socdo faa'iidooyinka ay leedahay istaraatiijiyada cusub ee jiilka shanaad ee dowladda Soomaaliya ay daafurtay. kusoo dhawaada daawadayaal mar kale iyo warbaahinta Cali Media. daawad haddii aad nagu cusubtahay YouTube-ka subscribe noo saar, video noo share garee. wasaaradda isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la daafuray istaraatiijiyad cusub oo loogu talagalay in lagu hirgeliyo isgaarsiinta jiilka shanaad ee loo yaqaan 5G. wasaaradda tiknoolajiyada isgaarsiinta iyo hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa si wada jir ah u daafuray kulan looga wada tashanayay habka loo hirgelin karo isgaarsiinta nooca jiilka shanaad ee loo yaqaan 5G oo dhawaan dunida ku soo biiray. kulanka wada tashiga oo bulshada qaybo badan oo ka mid ah lagu casuumay ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda isgaarsiinta iyo si la mid ah maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka. dhammaantoodna waxay tilmaameen istaraatiijiyadan cusub ee dowladda Soomaaliya ay hirgelinayso ay tahay mid faa'iidooyin badan ay ugu jiraan guud ahaan waddanka Soomaaliya. agaasimaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka Mustafa Yaasiin ayaa sheegay in istaraatiijiyadan cusub ee lagu hirgelinayo adeegga isgaarsiineed ee 5G ee jiilka shanaad loo yaqaano uu faa'iidooyin badan u leeyahay ganacsiga waddanka, waxbarashada, beeraha iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee waddanka. agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay qaabka ay u wajahaysa dowladda Soomaaliya hirgelinteeda, isagoo tilmaamay in wada tashi laga siin doono qaybaha kala duwan ee bulshada. danayaasha kala duwan ee isgaarsiinta ee waddanka ka jira ayuu sheegay in qayb weyn ay ku yeelan doonaan dowladda Soomaaliya ay tixgelin weyn sii doonto. sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda isgaarsiinta ayaa isaguna goobta ka hadlay, waxa uuna sheegay in adeegsiga isgaarsiineed oo kaliya uuna adeeggan 5G faa'iido u lahayn, laakiin sidoo kale uu faa'iidooyin badan u leeyahay hal-abuurka iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga. wasiiru dowlaha ayaa sheegay in dhaqaalaha waddanka ay rajo weyn ka qabaan inuu kobac wanaagsan samayn doono kadib markii la hirgeliyo adeeggan 5G. agaasimaha hay'adda isgaarsiinta Mustafa Yaasiin ayaa sheegay in istaraatiijiyadan cusub ay hadda hirgelinayaan ay ka leeyihiin dano badan oo ay ka mid yihiin in lagu yareeyo faa'iido la'aanta adeeggii hore ee 4G ee waddanka faa'iido badan aan u yeelan, sidoo kale tan magaalooyin yar ee waddanka ka mid ah ku koobnaa. Mustafa Yaasiin waxa uu sheegay in 10 sano ee soo socota ay ugu talagaleen in guud ahaan waddanka qaybihiis kala duwan la gaarsiiyo, dhaqaalaha waddankana qayb badan uu ka qaato adeeggan cusub ee jiilka shanaad 5G. wadamada horumaray waxaa horumarkooda saameyn weyn ku leh horumarka dhanka isgaarsiinta oo ay heer sare ka gaareen. wadamo badan oo loo yaqaano dunida soo koraysa inay ka mid yihiin ayaa iyaguna tillaabsaday oo gaaray horumar badan oo dhanka tiknoolajiyada, iyadoo Hindiya dhawaan ay gaartay meel dunida horumartay aanay weli gaarin. daawada qodobkan uga hadlayna faa'iidooyinka ku jira hirgelinta istaraatiijiyadan cusub ee lagu hirgelinayo adeegga 5G. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. intii kulanka la mid aan kulmayno waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.